dhowaan ayay ahayd markii khilaaf xoogani soo kala dhex galay qaar ka mid ah bulshada gobolka Togdheer iyo shirkadda bixisa adeegga korontada ee magaalada Burco. Khilaafkaasi oo uu keenay kadib markii shirkadda qiimaha leydhka ay ku bixisaan noqday mid aad u sarreeya. Haddaba waxaa khilaafkaasi soo afmeeray agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo tamarta Somaliland iyo weliba maamulka gobolka ka degmada Burco iyo maareeyaha shirkaddaasi. ugu horreynba waxaa halkaasi qodobada la isku waafaqay ka akhriyay agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo tamarta Somaliland Maxamed Yuusuf Ismaaciil. cabashooyinka saldhig u ahaa ama ugu muhiimsanaa qiimaha leydhka oo dadweynaha reer gobolka Togdheer ama reer Burco ay ka cawdeen qiimihiisu inay qaali yahay markii aanu shirkadda wax badan isla faaqidnay wax badanna isla eegnay waxaanu isla garanay in ay shirkaddu macaamiisha qiimihii ay ku siin jirtay in ay jabiso 20% qiimihii ay ku siin jirtay markii hore ee ahaa 79ka inay 20% ay jabiso imika wixii ka dambeeyay insha Allah ay qiimaha shirkadu ay ku sii doontaa muwaadiniinteedu noqon doono 0.63 waxa kale oo aan isla qaadanay in maadaama dadka macaamiisha ee shirkadda inay iyaguna ay say shirkad wadaniya oo maalgashi sameysay inay qiimaha korontada ay isticmaalaan inay iska bixiyaan bishii waxa kale oo isla garanay inay shirkaddu u dhibirsanaato adeegeedana hagaajiso dadkana waqtiyada adag iyo duruufaha adag ee waqtigan maanta lagu jiro inay macaamilka markuu duruufaha adag inay u tixgeliso oo aanay leydhka ama korontada si degdega iyada laftigeeda aanay uga jarin waxa kale oo aan isla qaadanay shirkadda waxaan guud ahaan in sharaa'iga dalku in aanay leydhka korontada qiimihiisa in aanay korna u qaadi karin hoosna u dhigi karin iyadoo ogolaanshiyaha wasaaradda tamarta iyo macdanta iyadoo wax ogolaanshiyaa iyadoona aanu ka haysan mas'uuliyadda koronto gelinta ee guryaha waxa iska leh oo kaliya mulkiilayaasha iyo dhismayaasha leh isla markaana cid kasta oo kireysta dhismayaasha sinaba uma farigelin karaan saacadaha iyo waxyaabaha cabirada ah si looga hortago in shirkadda amaba khalkhal uu ku yimaado lacagaha iyo waxyaabaha barasaabka gobolka Togdheer maayirka degmada Burco iyo maareeyaha shirkaddaasi Heko ayaa iyaguna dhankooda sheegay in loo jabiyay qiimihii bulshadu ka cabanaysay baan u hambalyeynana maartay safkaradkan laga gaaray cabadkii qaar ka soo baxayay qaar ka mid ah dadweynaha annaguna mar walba waxaanu la dareenahay oo aanu bulshada dareenkeeda nahay inaan u raadino koronto runtii la isku halayn karo oo joogta 24 hours joogta isla markaana amaana oo bad qabta isla markaana ay dadku ku helaan intii awoodda qiimo macquula ay ku helaan ayaan mar walba maalgelintayda iyo shaqadaydu ay tahay sida wasaaradduba aanu uga wada soconno marka runtii aad iyo aad baan guud ahaan soo dhaweynaa arintan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay heshiiskan maanta halkan ka dhacay goob joogna ka ahayn mararka qaar koodna daan wax iska difaacaynay oo dadka leedhka laga iibinay lacagta laga qaadayaan kamid ah waxaan is leeyahay 20% in la daayo waa shay aad iyo aad muhiim oo fiican ay shirkaduna way dadaashay sida runtii aad bay u dadaashay oo way u dhaga nuglaatay madax iyo mijaba hawsha cid kale hadisay inay in badan dadka u goglanaadaan oo ummadooda ay hoos u eegaan waqtiyada waliba aad iyo aad maartay waxa saasiga ah ummadu ay baahan tahay waanu mahadnaqaynaa sida ay nooga ajiibeen halkan waxaa marti inoogu ahaa ayaamihii loogu dambeeyey oo hawl u yimi ku saabsan shirkadda Heko ee leydhkeena siisa iyo gobolka Togdheer wafti uu hogaaminayay agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta kadib markii ay soo baxday waxoogaa hadal oo ku saabsan leydhka iyo nidaamkiisa iyo shirkadda iyo macaamiisheeda hadalkaasoo runtii wanaagsan haddii hadal yimaado in la soo afjaro dhammaanteen waxaan isugu nimi in solution ama xal wanaagsan oo waara oo wax ku oola
aynu ka gaadhno arrinta ayaan le Cabdullaahi Jaamac warbaahinta caalamiga SBC magaalada Burco.